dhibka lagala kulmay inta masaajid cali guduud lahay waa ognahay aadaan ula soconnaa habeenay maalin shaashada kor fadhihaye meel hebel baabuura lagu qarxi meel hebel goor waa soo galeen magaalada dhexdeedana guryaha dhexdooda wixii ay ka qoteen magaalada laga raacday waa aragnay meel kasta meena gili xagga bug waa aragnay qof caadi ah waxaas uma bareeri karin adika u bareerteen sharafteedii iyo karaamadeedii iyo maanta waa leedihiin Soomaalina waa leedahay maanta adduunyada Soomaaliya waa faanay waxay ku faanaysana waa waxa hawsha adika aad qabateen oo dhigiina aad u hurteen saaxiibaad jeceshihiin kugu fasal ahay kugu training kugu tababar ahay ka tirsanay ururkaada horintaada kooxdaada unugaaga yaa meeshan ama iyo meel kala dagaalka nimankan lagu jiro lagu waay laakiin wax ka qiimo badan oo lagu waay lahaay ma jirto waa dhima lahaayeen ma noolaa lahayn waqtigoodii intaas ku ekay intii dhimatay sariirtiisa ku kor dhima laha meel kale hadaan kugu dhiman xataa laakiin meel sharaf leh oo karaamo leh oo magaciisa ilaahay idinkiis la xisi doono intaba ciidan xoog dalka Soomaaliyeed oo jiro dawlad Soomaaliyeed calankeeda ay bagbag leedahay hadii la yiraahdo iyo ku dhintay shahiidka runta ee shahiidayna waa kaas waay waxay diintu nafartay ee hal difaaca ayna tiri yaan u taaganahay sharafta karaamada عزك بن آدم قف كليه دينتيسا waxay ilaahay ay ogol yahay in loo dhinto waay ilaahay ma ogola in qof soo baxo 100 qof inta isku dhax qarxiyo oo 50 qofood oo kamid dilo qontanka kalena oo dhaawaco ilaahay ma ogola raali kama ah saasaana dad ku dhinto hayaan maanta غيرkiin ah Soomaali ah jiilkii da'diini ah nimankan shayaatiinta ah ayaana saas u sabab ah oo maskaxdii ay ka qaadeen ka xadeen aqligii maskaxdii ka xadeen عقلي مسكحة بني آدم كان آدم لو حد كره مسكحة دو دنيع لو حد معنا هذا كان دنيع كراتين أي آدي